weli ma isku aragtay in xaalad la taagan yahay aad u malayso midaad horay u soo martay oo kale ama aad horay u soo aragtay sida inaad qof markii ugu horeysay wada kulanteen balse aad u malayso in wada kulankan iyo wada hadalkanba ay horay u soo dhaceen haddaba ha walwalin kaliya ma tihid oo dad badan baa kula qabo xaaladan dhacdadan waxaa la yiraahdaa deja vu waana mid ka mid ah dhacdooyinka ugu layaabka badan ee ku dhaca bini'aadamka sida inaad saadaaliso qof wuxuu ku dhihi doono tusaale saaxiibka oo wada sheekaysanayseen aad istiraahday sidaas ayuu ku dhihi doonaa kadibna isla sidii ayuu ku yiri saaxiibka ereygan deja vu waa af Faransiis micnihiisu yahay horay ayaan u arkay xaaladan ma ahan inaad horay u soo aragtay dhacdooyinkan taa beddelkeeda waa markii ugu horeysay ee aad arkayso ayna kugu dhacayaan haddaba maxay ka micno tahay horta weli looma helin wax fasiraad cilmiyeysan oon ka ahayn aragtiyo ay ka mid yihiin inay tahay xaalad aad kala sooci weyso in waxan aad arkayso aad riyo ku soo aragtay ama inaad dhab u soo aragtay sidoo kale kuma jirto diinteena fasiraadda xaaladan hana ka cabsanin malahid wax xanuun ah haddaad isku aragto xaaladan waana wax dabiici ugu dhaco bini'aadamka inkastoo ay u badan yihiin dhalinyarada